kulan wanaagsan saaxiibayaal dhammaantiin meel baa joogtaan halkan waa Kalsama TV waxaan idinku soo gudbinaa wararkii dhacdooyinkii ugu dambeeyay caalamka qodobada xilligan sida tooska aad ugu daawan doontaan haddii guul la saamaxana waxaa ka mid ah Mareykanka oo cambaareeyay xabsiga muddada dheer ee lagu riday haweeneydii talada dalka Myanmar lagala wareegay bishii February sanadkii 2021 Sonkai xilligan waxay wajahaysaa xabsi military oo militariga junta ay ku rideen daandaansiga Mareykanka uu ka wada gacan biyoodka u dhaxeeya Shiinaha iyo Taiwan oo war laga soo saarayo iyadoona Shiinaha uu heegan culus geliyay ciidamada cirka si ay uga hortagaan dhaqdhaqaaqyada Mareykanka wararkii ugu dambeeyay dagaalka Ruushka oo la sheegayo in militariga Ukraine ay saga baxeen goobo muhiim ah taa oo suuragal tahay in xukuumadda Moscow militarigeeda ay dib ula wareegaan Palestine wali waxaa ka soconaya baabi'inta iyo toogashada dhalinta ciidamada Israel ayaa mar kale waxay toogteen wiil 16 sano jir ah faafahinta waa daawan doontaan wararka kale ee tabinteena ku jira waxaa ka mid ah iskuulada ayaa dib loo furayaa magaalada Beijing kadib markii la sheegay in laga adkaaday caabuqa coronavirus-ka ka oo muddo ay u xirnaayeen goobaha waxbarashada ee dalkaasi qodobadaasi wixii nagu soo kordhaya tabinteena ku daawan doontaan saaxiibayaal haddii ay tahay markii kugu horeysay halkan soo gaadho waxaan kaa codsanaynaa inaad ka mid noqoto saaxiibada ku xiran Kalsama TV oo aad channelka subscribe saarto muuqaalkana la wadaagto saaxiibada aan helin xogaha aan halkan soo gelino adigoo like gareynaya bal markan aan ku bilaabo dowladda Mareykanka ayaa cambaareysay qoraal ay soo saartana kaga hadashay dhaqdhaqaaqyada iyo waliba xaaladaha ugu dambeeyay dalka Myanmar iyadoona militariga la wareegay talada dalkaasi bishii February sanadkii 2021 ay xabsi muddo dheer ku rideen haweeneydii ay talada dalkaasi ka faramaroojiyeen waa Aung San Suu Kyi taa oo iyadu lala xiriirinayo inay ka dambeysay gaboodfallo laga geystay gudaha dalkaasi oo militarigu ay shaaciyeen Aung San Suu Kyi ayaa waxaa markan iyadoo loo dhaadhiciyay xabsi gaar ah oo ay kaga duwan tahay maxaabiista kale kadib markii laga soo furay goob aan la garanayn oo ku taala magaalada Naypyidaw oo ay in muddo ah ku xirnay tan iyo markii talada dalkaasi ay la wareegeen militariga junta diblomaasi u dhashay Mareykanka ayaa qoraal ku daawacay bartiisa Twitter-ka waxa uu ugu baaqay militariga in dowladda dalka Myanmar dib loogu soo celiyo xukunkeeda qaab dimuqraadiyadeed iyadoona lagu wado in saraakiil diblomaasiyiin kale ay booqdaan dalal dhowr oo ku yaala koonfur bari Asia si ay ugu indheeyaan xaaladaha bini'aadantinimo ay u baahan yihiin Mareykanka ayaana qayb libaax leh ka qaadanaya si dadaal adagna ku bixinaya si dib loogu soo celiyo dalka Myanmar wadada dimuqraadiyadda taa oo ay sheegeen inay u horseedi karto dhisidda dowlad baraare iyo barwaaqo leh mustaqbalka dhow dhinaca kale afayeen u hadlay militariga junta oo lagu magacaabo Son Minton ayaa dhankiisa ka hadlay arrinta xabsiga Suu Kyi oo uu sheegay inay markaasi baaritaan dheeri ah mari doonto kadib markii la ogaaday inay qayb ka ahayd saraakiil ka tirsan dalka Myanmar tan iyo markii talada ay haysay in ay bixiyeen xogaha qaranka oo uu sheegay haddii lagu helo inay markaasi mudan doonto muddo ka badan tan lagu xukumay oo 150 sano xabsi ay markaasi gali doonto dhinaca kale dad shacab ayaa isugu soo baxay caasimada dalka Myanmar kuwa oo ku andacoonayay in la sii daayo haweeneydaasi kadib markii maanta ay ku beegnayd 77 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay heshay abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka dhinaca kale khubaro dhanka siyaasadda Myanmar oo ka hadlay xabsiga military ee Suu Kyi ee gashay ayaa sheegay inay noqon doonto mid mar kale fagaaraha siyaasadda aan lagu arki doonin kadib markii labaad oo xabsi ay galayso ay tahay iyadoona hore 15 sano xabsi gashay sanadadii u dhaxaysay 1962 ilaa 2021 markan dhaqdhaqaaqyada gacan biyoodka u dhaxeeya Shiinaha iyo Taiwan oo war laga soo saarayo militariga Shiinaha ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay duulimaadyadii ugu dambeysay ee dul martay diyaarad ay leedahay dalka Mareykanka oo marin biyoodka Taiwan si bareera markaasi ay sheegeen inay carqaladaysay xaaladda gobolka ayna halis gelisay nabadda iyo waliba xasiloonida gobolka afayeenka taliska tiyaatarka bari ee ciidamada xoreynta shacabka dalka Shiinaha Colonel Xin Yan ayaa war qoraal uu soo saaray ku sheegay in militariga ay abaabuleen ciidamo isugu jira kuwa cirka iyo dhulka kuwa oo markaasi la socon doono howlgalka diyaaradaha Mareykanka ee iyagu dhacay waxa uu intaasi ku daray inay si adag uga soo horjeedaan falkaasi uu ku kacay Mareykanka isla markaana ay ciidamadoodu heegan buuxda ku jiraan sida lagu sheegay war qoraal ah oo laga soo saaray arrimaha ku aadan ciidamada badda Mareykanka ayaa jawaab ka bixin eedeymaha loo jeedinayo gacan biyoodka Taiwan ayaa waxa uu ahaa isha ugu
badan ee xiisadda military tan iyo markii dowladda laga adkaaday ee Shiinaha u qaxday Taiwan sanadkii 1949 kadib markii ay lumisay dagaal sokeeye oo ay la gashay shuuciyadda kuwa oo aasaasay jamhuuriyadda dalka Shiinaha. Shiinaha ayaa hore u sheegay in madax bannaani awood u leeyahay marinbiyoodka Taiwan, halka Mareykanka iyo Taiwan oo dhinacna ay sheegeen in marinbiyoodka jasiiradda ay ka go'an tahay in marinbiyood caalami uu noqdo islamarkaana ay ka soo horjeedaan sheegashada dalka Shiinaha ee marinbiyoodkaasi. Taiwan oo Shiinaha uu ku andacoonayay inuu yahay dhul ay leeyihiin ayaa sanadadii ugu dambeysay ka cawanaysay howlgallo soo noqnoqday oo ciidamada cirka Shiinaha ay ka wadeen meel u dhow jasiiradda sida dimuqraadiga ah loo maamulo oo inta badan ku taala qaybta koonfur galbeed ee aagga aqoonsiga difaaca hawada ee lagu magacaabo Addis oo u dhow gobolka Taiwan oo ay maamusho jasiiradda Barates. Dhaqdhaqaaqyadan ayaana loo arkaa inay markaasi dagaal cusub ka dhex qarxin karto Shiinaha iyo Mareykanka oo xaaladooda ilaa iyo haatan ay deganeen, isla markaana Mareykanka Shiinaha uu ku dhaleeceeyo inuu taageero buuxda siiyo dowladda caalamka ay ka soo horjeesteen duulaanka ay ka wada Ukraine. Waa Ruushka oo markaasi loo arko in taageero buuxda uu siinayo. bal markan dhanka iyo Falastiiniyiinta oo la dhibaatoonaya dhibaatada ay ku hayaan ciidamada Israa'iiliyiinta oo iyagu maalin walba naafeeya dhalinta soo kacayso. Mohamed Hamad oo 16 sano jir ah ayay ciidamada Israa'iil ku joogtay meel u dhow wado gasha deegaanka Ofra ee Israa'iiliyiintu ay degan yihiin kuna dhow magaalada Ramallah. Mohamed ayaa waxa isagu markaasi loo arkayay inuu ahaa qof shacab ah oo goobta iska marayo, laakiin militariga Israa'iil oo iyagu ka didsan Falastiiniyiinta gaar ahaan dhalinyarada ayaa toogasho toos ah oo bareer ah markaasi ku fuliyay. Militariga ilaa iyo haatan wax waraamay ka soo saarin arrinta ku aadan toogashada oo uu xaqiijiyay xildhibaan Falastiini ah laguna magacaabo Silwat. Todobaadyadii la soo dhaafay in ka badan 40 qof oo Falastiini ah ayay ciidamada Israa'iil ku dileen daanta galbeed ee la haysto oo uu ku jiro wariyihii Al Jazeera ee dhalashada Mareykanka haystay Shireen Abu Akhla oo iyadu ka soo waramaysay Israa'iil in muddo ah, waxaana ilaa iyo haatan dowladda ay markaasi aqoonsan yihiin Mareykanka ee Israa'iil ilaa iyo haatan war sax aysan ka soo saarin. Israa'iil ayaa waxa ay si sharci darro ah ku qabsatay daanta galbeed dagaalkii 6 maalmood socday ee 1967. Falastiiniyiintu waxa ay rabaan in dhulka loo soo celiyo si waafaqsan sharciga caalamiga si ay u noqdaan qaybta ugu weyn ee markaasi dowladooda mustaqbalka dhow. Israa'iil ayaa waxay dhankeeda sheegtay in howlgalladeeda militari iyo booliiska ay markaasi uga gol leeyihiin la dagaalanka argagixisada, halka Falastiiniyiintu ay u arkaan inay tahay hab lagu sii wadi karo ku dhawaad 55 sano oo markaasi ciidan oo dhulka ay markaasi ku doonayaan in ay ku qaataan. Xanuunka faafaha daran ee coronavirus ayaa waxa uu ahaa mid markaasi Shanghai ay la dhibaatoonaysay muddooyinkii ugu dambeysay. Beijing ayaana war ay soo saartay waxa ay markan ku ogolaanaysaa in dib loo furo goobaha waxbarashada gaar ahaan dugsiyada hoose iyo weliba kuwa sare si dib loogu soo celiyo fasalada ay carruurtu akhrisan jireen kadib markii la iclaamiyay in laga guuleystay xanuunka faafaha daran ee COVID-19 oo markan la sheegayo in markii ugu horeysay muddo 2 bil ah aan ilaa iyo haatan wax keys cusub aan laga helin. Labada magaalo ee ugu waaweyn dalka Shiinaha ayaa waxaa laga diiwaangeliyay xanuuno dhowr ah oo Omicron-ka uu ka mid yahay bilihii March iyo May, balse xilligan waxaa la sheegayaa in muddo lockdown ay ku jireen dadka lagana qaaday bishan 1deedii in dib loo furayo iskuulada. Dadaalo adag oo ay bixiyeen waaxda caafimaadka ee ka hortaga xanuunada faafaha daran ayaa ku guuleystay. Beijing ayaana markan waxaa loo dareeri doonaa goobaha waxbarashada iyadoona ardaydu ay in muddo ahaayeen kuwo wax ka baranayay dhanka fogaan aragga ah oo iyagoo jooga guryahooda. Qodobkii ugu dambeeyay ee tabinteena ayaa isla soo gaarnay waxaana uu daaran yahay dagaalka dalka Ukraine oo maalinkii 122 galay. Dhiilo horle ayaa soo yeeraysa oo ku aadan in militariga Ukraine ay isaga baxayaan magaalada istaraatiijiga ee Severodonetsk kadib toddobaadyo dagaal faraha looga gubtay ay ka socdeen halkaasi. Dib u gurashada ciidamada militariga Ukraine ayaana u horseedaysa in huwanta Ruushka ay dib u qabsadaan dhul ballaaran oo bariga Ukraine. Colaadda ayaa ilaa iyo haatan maara loo laayahay waxaana dhowr gantaal ay ku soo dhaceen goobo markaasi ay ku sugnaayeen ciidamada Ukraine iyo kuwo kale oo ka duwan goobihii ay bartilmaameedsanayeen militariga Ruushka.
barasaafka gobolka Lviv ee galbeedka Ukraine Maxim Kaczynski ayaa muuqaal laga soo duubay la soo dhigay barta internetka ku sheegay in 6 gantaal ay ku soo tuureen badda madow saldhigga Yurogif. 4 ka midana waxaa markaasi uu sheegay in goobihii loogu talagalay amaba ay beegsanayeen aysan la haleelin. xaaladda dagaal ee dalka Ukraine oo muuqata in markaasi haddii uu sii socdo keeni karto in dagaalka saddexaad ee dunida la galo ayaa waxaa ilaa iyo haatan maare loo laayahay, balse xukuumadda Kiev ayaa helaysa taageero dhaqaale iyo dhan military oo Maraykanka iyo NATO kaga imanaysa. gudaha saaxiibayaal waxaa intaa inooga egtabinteennii